alla wixii xildhibaan soo noqday aqal sare wixii soo noqday wasiir wixii soo noqday wasiir ku-xigeen wixii soo noqday taliya ciidan wixii soo noqday aeroboortka xamar ay iguna ku ordi doonaan. That's why inay aeroboortka rabaan inay u cararaanna waxaa kuu caddaynaya hadda laftigooda ay aeroboortka agdegan yihiin. bal waa sababta mataqaana you know intay baxaan daayniila degi maayaan, daarasalaam degi maayaan, suuqa xoolaha degi maayaan, waxara cadda degi maayaan, kaaraanta bari degi maayaan, suuq bacaad degi maayaan, baarubax degi maayaan, dhulkan xooshay muddo degi maayaan. dhammaantood xildhibaanada wasiirada ku-xigeenada taliyaasha ciidamada kulligood waxay degan yihiin madaxtooyada agagaarkeeda iyo airportka agagaarkiisa. waxay rabaan saacad kasta waxay rabaan inay cararaan. الأقسام بتاعت الصومال ديت خليني أقول لك على القسم المهم جدا. أهم قسم في الصومال كله هو قسم واحد بس، المطار. مطار مقديشو، أنا بسميها دايما بقول عليها حكومة المطار. ليه مسميها حكومة المطار؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان وكل دول بيعقدوا اجتماعاتهم داخل المطار. كل الاجتماعات وكل حياة النظام السياسي كله للصومال متمركز حوالين المطار. ده معناها انه الامن على الاطلاق غير موجود.